okay hadda saacada ay la hadlaysid ama aad dhegeysanaysid haddii aad rabtid inaad maxaa ladhahdaa qalab siska toos usoo qaadatid hadda inta badan cashirka waxaynu ku sameynaynaa maxaa ladhahdaa packet tracer marka laakiin waxba kuma kala duwana packet tracerka iyo switchka rasmiga ahaa waxba kuma kala duwana aan ka ahayn intaa hadda aan kuu tilmaamayo aan ka ahayn meeshaad qalab badan soo gadan lahayd adoon qalab badan soo gadan ayaad wax walba samayn kartaa laakiin lacala maybe haddaa mustaqbalka siska fan iska noqotid qalab xabad calisa iska soo gadanaysaa waxba dhibaa mala marka see u isticmaalaysaa waxaan waa dhankii dambe maxaa layihahdaa siskaday marka kan waxaan filayaa in router camal oo kale waaye haddaa marka fiirisid switch ha noqdo ama router ha noqdo isku wada mid qaabka loogu xirmanayo xaggan waxaa gelaya dabkii caadiga ah dabka computerka oo kala gala dabka computerka oo kala ayaa gala xaggaa dabkii baa gelaya saa aragtid okay marka dabka computerka maxaa layihahdaa dee desktopka caadiga gala oo kala gala laba xaggan waa meeshii laga daariyo laga daminayo routerka inta badan meel laga daaro laga damiyo leey switchka meel laga daaro meel laga damiyo male waa iska gelinaysaa waa iska ifayaa marka aad lacala rabtid inaad daminaysidna waa iska daminaysaa okay kuwan waa goodkan waa ethernet ports ama gig ethernet aad labadaba hadda ku noqdo gig ethernet ama ethernet ports xagan maxaa layihahdaa waxaynu haysanaa console-kii kan waa console baa loo yaqaanaa console 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 port baa leedahay console port waxaa loogu talagalay routerka marka lagu keeno ugu horeysa maadaama shaashad madow uu yahay shaashada madow ama CMD da bahalkan loo galayo si alaagiisa la galayo marka ugu horeysa lagu keeno kanaad ku xiranaysaa fiilada kadibna waxaa ku xiranaysaa laptopkaada fiilada la isticmaalayo maxay tahay console cable baa layihahdaa ama maxaa weeye maxaa layihahdaa USB serial baa loo yaqaanaa inta badan USB serial marka dhanna USB bay ka tahay dhanna serial bay ka tahay marka kolle converter baa lasii isticmaalayaa waa arka ku tusi doonaa sawirkeeda laakiin xigmaddu waxa weeye fiiladaas xaggaan ay ka gelaysaa laptopyada kombiyuutarada hore unbaa serial lahaa caadiyan waxaa jira mid af serialka ah afna ka ah RJ45 oo halkaa toos u galaya marka kuwaas inta badan kombiyuutarada hadda jira serial ma laha godka serialka ma laha laakiin taasaa waxaa lagu xirayaa mid kale oo female ah afka dambana waxay ka tahay USB bay ka tahay marka USB gaasaa kombiyuutarka ku xiranaysaa xagaa ku yaala kombiyuutarka ku xiranaysaa marka kadibna software yar baa kacsanaysaa softwareka booty baa ugu caansan hadda free ah kuwa badanoo waa jiraan la isticmaalo softwareka yarka la soo degaysaa softwarekaas ayaad markaa qaybta serialka aad tegaysaa halkan kombiyuutarkana waxaa fiirinaysaa device managementiga leedahay waxaad fiirinaysaa siduu usoo qabsaday ayaad eegaysaa marka intaa haddaad samaysid xaalku markaa caadi bu noqonay marka hal mar aynu hadday rabno aan samayno inkastoo aanan haysan igu jirin laakiin conceptiga inaynu aragno waa muhiim marka sida aragtid maxaynu sameynaynaa dhowr arrimood oo asaasi ah markaan rabno inaan ku xirmano xaggan waa xaggan ka hadlayo oo networka kombiyuutarka ku tilmaamaysay meesha kombiyuutarka IP-ga laga gelinayo open network and sharing center u dheh halkaas weeye open network kombiyuutarada desktopka isku tilaab baa saaran change adapter system baa leedahay kombiyuutar marka IP-ga ka bedelaysid ethernet baad dooranaysaa right click properties baa leedahay waa aragtaa ethernet kan waa wifi marka wireless ku xiranaysa marka ethernet hadda ethernet baan ku xiranaynaa markaynu ethernet soo furano waxaan kasii dooranaynaa internet protocol version 4 haddaa version 6 rabtid version 6 hadda obtain rabtid obtain baa labadaba dhahaysa haddii kalena IP caadi ah ayaad gelinaysaa kombiyuutarka caadiyan qaabkaas ayaa IP loo geliyaa IP-gaas aad gelisay 1 dhibic maybe 1 dhibic 1 dhibic wasigisay 1 dhibic maybe 10 baan geliyay default gateway-gana maybe waxaan gashtaa 1 to wasigisay 1 dhibic 1 halkaan saa internet u heshid 4 baa la iska gashtaa ama 8 4 iyo 8 marka kuwan waa DNS haddii aadan DNS shirkadaadu aysan lahayn kan Google baa iska isticmaalo Google baa iska leh marka kuwan isticmaali kartaa internet soo heshid haddii kale shirkadaadu DNS bay leedahay IP-ga kadibna okay baa leedahay okay baa leedahay okay baa sii leedahay saas IP-ga horta kombiyuutarka loo geliyaa taa waa IP-ga waa ka tagaynaa waxaa inoo haray mid kale oo ahayd inaynu marka aragno serialki markaad ku xirantay ayaad rabtaa marka inaad fiirisid isheeg godku soo qabsaday marka halkan ayaad right click ku leedahay my computer marka dul tagtid properties baynu leenahay
device manager baad leedahay. device manager markuu kuu soo kaco xaggaasa marka waxaa kuu soo gelaya de hadda ma hayno laakiin hadhow waynu helaynaayo maxaa la yidhahdaa halkaas haddee console oo kale kuu soo gelaya marka hadda dee hadda consoleka nooguma jire wuu kuu soo qorayaa maaragtay ethernetkii iyo maaragtay serialkii wuxuu arkaysaa com 1 iyo com 2 iyo com 3 iyo waxaasuu leeyahay. comka marka kuu galay com 2 hadday ahayd dee com 2 waad dooranaysaa. halkan marka markaynu bootigeeni soo kacsanno waxaan filaya booti hadda inuusan igu jirin baan filayaa. booti iguma jiro. bootiga markaad soo kacsatid ayar ayaad markaa aad ugu shubanaysaa haddii ilaahay marka bootiga la fiirsaa aad dooni karnaa wax yar. marka bootigan soo dejinaynaa. bootigu muxuu yahay? waa software kaa anfacaya inaad siskada dhex gashid switchkii ama routerkii ama mushidii shaqo ka qabatid yaa ilaan hadda packet tracer baa iska isticmaashaa packet waa iska gelaysaa laakiin for real hadhow shaqadu way isbedelaysaa. marka bootiga aynu soo dejinno xaggeenanu ku dhufanaynaa waxaanu dooranaynaa xaggan google baynu tegaynaa. google markuu inoo soo baxay waxaynu ku qoraynaa booti. waxaan leenahay kan ugu horeeyaad ku dhufanaysaa oo www.booti.com kan download here halkan aan ku dhufanaynaa. marka booti softwarekan waa softwarekii hadhow telnet ssh ahaan saddex qaab baa loo galaa switch ama router siska telnet ama ssh ama console. marka consoleka waa markaa toos ula joogtid oo ay kugu horeyso kaasa marku dhufanaynaa 64 bit ka dooranaynaa dhax haddaa adiga 32 bit iyo wax lamid ah haysatid 32 bit kaada ayaad isticmaalaysaa. marka waa inta badan majority of the time kombiyuutarada aynu maanta isticmaalno majority of the time waxay u badan yihiin 64 bit waqtiga hadda aynu joogno laakiin maxaa waa baa jirtay 32 bit iyo waxaas la isticmaali jiray laakiin hadda waa laga baxay. marka halkaa comki waa kasoo aqrisatay com 1 com 2 kadib marka hadda inaad gashid baa kuu dhiman keliya. okay shaqadii waa qabanay. marka fiirso haddaynu ssh isticmaalayno hadda IP-ga caadi u gelinayna saasoo kale 1.1 kadibna ssh baa dooranay ama telnet baa dooranay ma garatay. laakiin ssh iyo telnet markaa ku geli kartid waa markaa dee horay u configure garaysay oo waxay dee ku diyaarsan yihiin. laakiin hadda inuu ssh iyo telnet midna ma jirtee serial baa ku garaysaa sababtaa marka com 1 com 2 comka uu yahay xagee ku ogaatay waxaa ka ogaatay maxaa la yiraahdaa xagganaad ka ogaatay meeshii device managerkaad ka ogaatay xagganaad ka ogaatay comka uu yahay. marka taas waa taa. marka cableku see u egyahay USB serialka see u egyahay USB serial cable marka cableka concept ahaan kan weyn serialka waa kan serialkii iyo USB kaasaan mid kale ku sii xiranaynaa oo USB kan kale ku sii xiranaynaa kan iyo kan aan isku darsanaynaa kan marka oo sorry kan already USB waaye iyo kan iyo waxaan isku xiranaynaa mid leh network mid network ah hadda already waxaa noo soo baxay USB serial console cable waa kan hadda isagoo isku xiran waa kan. okay hadda saa aragtid marka afkan waa RJ45 caadiga gashan. afkan wuxuu gelayaa switchka ama routerka godkiisa consoleka ayuu gelayaa. afkana waa aragtaa waa USB labadii serial iyaga la isgeliyay midna waa female midna waa male. marka waxaan filayaa inaad fahansan tahay xariga un baad soo gadanaysaa. okay USB serialka afna maaragtay kan inta badan switchku la socdaa oo maaragtay serialka iyo RJ45 ka switchka inta badan la socdaa. afkan kale un baa banaanka laga soo gataa. marka kanaad ku xiraysaa kan markaa ku xidhid kombiyuutarka afka USB ga gelinaysaa waayo kombiyuutarada dambe serial male. kombiyuutarka afka USB ga gelinaysaa afkan RJ45 ka waxaa gelinaysaa dhanka routerka ama switchka godka consoleka labadaana waa isku xirantay. markaas ayaad waxaad fiirinaysaa device managerkii ayaad fiirinaysaa. device managerkii waxaad fiirinaysaa ma com 1 buu haystaa ma com 2 buu haystaa. markaana com 1 com 2 gaala ku qoraysaa serial open baad leedahay horaad ka gelaysaa shadii madowga kuu soo baxaysa. marka ugu horeysa passwordka ku weydiinaya waa Cisco. haddii passwordka weydiiyo waa Cisco
wax kale ma leh marka ugu horeysa. Marka taasa waxaa kugu tagaysaa meel furan ayaad saa ku tagaysaa. waa hagaag markaan aynu kusoo noqono marka casharkeennii waxaa halkaa inala gashay sharaxaadaas inala gashay inaynu wax ka fahno qaab practically for really ah si aynu u aragno wixii u fahno how to connect see ugu xirman lahayd switcheska ah ama routerkiisa ah. waayo wixii inaad configureysid oo hadba wax ka bedeshid oo hadba wax ku samaysid inaad ku xirmatid baa muhiima ka horeysa. haddii computer baa haystaa laptop kadibna waxaa rabtaa switchkii ama routerkii inaad ku xirmatid. marka laba qaab baa ugu xirman kartaa ama saddex qaab baan dhahno. qaab waa maxay consoleka inay isticmaashid oo hadda saan ku tusayay ah lacala haddaa si rasmi ah uu kula yaallo switchka ama router kula yaallo fiiladii USB consoleka ayaa isku xiraysaa routerka xaggan aad ka gelinaysaa oo xaggan consoleki waa kan afkii kale oo maxaa riyada USB-ga ahna waxaa gelinaysaa computerka kadibna softwareki yarka ahaayo booty la dhihi jiray soo kacsanaysaa qaybtii marka waxaad dooranaysaa serialka saasaa ugu xirmanaysaa. okay haddii uu hore u diyaarsanaa ama hore uga shaqaysa SSH ama telnet baa ku geli kartaa. marka taana waa taa oo isla bootiga waa soo kacsanaysaa markan SSH ama telnet baa dooranaysaa laakiin waa inaa isku network tihiin taana waa muhiim. laakiin for now maadaama wax practice garaynaysid shaqadaa dhanba uma baahnid sababtoo ah dee packet tracer markaa isticmaalaysid isaga unbaa iska kicinaysaa un moogtahay serial unbaa iska leedahay waa iska gelaysaa. marka serialkii shaqadii badnayd oo maarata inaad qalabka baalka yarka soo qaadatid inaad baalka daartid intaa unbaa shaqo badan runtii maa intaa unbaa aadan samayn. marka intaana waad samayn kartaa haddii aad doonayso. marka auxiliary boortigan oo boorti labaad oo kan weeye kan faa'iidadiis wax kale ma haddii lacala kan kaa xumaado inaad kan maaragtay aad shaqada ku qabsatid ayaa laga wadaa. hadda routerkan labadan goda arkaysa labadan waa gig ethernet iyo sidaan arko kan waa gig ethernet kana waa gig ethernet kuwana waa fast ethernet iyo kuwana waa fast ethernet iyo marka waa isku mid wada ethernet labada god kan waa fast waa 100 megabytes per second kana labadana waa 1000 megabytes per second xagana waa USB iyo wax la mid ah. hagaag waxaan filayaa marka hadda in ay ka dhacday sida loogu xirmo switch ama router siska. marka qaabka de physically loogu xirmayo un baan sharaxay wixii wax dhib badan maaha. haddii xoogaa ay dhib u aragtid casharka mar labaad mar saddexaad baad daawan doontaa laakiin diiradda hadda iska saar packet tracerkaada inaad ka gashid hadhowna waad fahmaysaa markaad USB serial iyo waxaan iska soo qaadqaatid marka lagu xirmayo. laakiin waxaa muhiim ah inaad fahantid waxba kuma kala duwanaa wax saas kuma kala duwanaa automatically haddii packet tracer ku practice garaysid oo fahantid hadhow waxay ka dhigantaa inaad siskada switchka caadiga aad fahantay ayay ka dhigantaa. marka waa kan bootigii booty kaliya ma aha hadhow markaad rabtid inaad access garaysid dhowr badan baa kuwa badan la isticmaali karaa. Tera terminal baa jira, secure CRT baa jira, hyper terminal Windows XP ku dhisan yahay. Computer Windows XP hadda waa laga baxay lacala haddaad haysatid hyper terminal oo ku dhisan yahayba. kuwan kale maartay kuwa lacag baa jira maybe secure CRT oo kale waa lacag maybe kan waa free waaba ku sida loo soo dejiyo. marka toos ayaad ugu xirmanaysaa haddaad telnet rabtid telnet haddaad SSH rabtid SSH hadhow for real marka la shaqaynayo shaqada xafiiska la joogo saasaa loogu xirmaa switchkaadii siskada aha ama routerkaadii siskada ka xafiiska fadhida oo caadi u shaqaynaysa soo wax garatay ma. laakiin marka practice ku jirdid dee uma baahnid booty iyo waxaan oo dhan iyo switchka un dee caadi ba isaga xirmanaysa way iska dhex gelaysaa dee sidana casharada inta badan ku arki doono. modes waxaan marka arkaynaa switchka siskada ama routerka siskada ama dee iOS waa isku wada mid si guud baynu u baranaynaa waxyaabo yar un baa routerkana u gaara switchkana u gaara laakiin concepti waa the same. marka modeska ayaynu arkaynay. modeska marka maaragtay saddex darajo ayuu leeyahay. marka waxaa jirta ayuu leeyahay darajo walbana waxaa ku fasaxmaya koorar gaar ah ayaa ku fasaxmaya. okay marka darajo walba waxaa ku fasaxmaya koorar gaar ah. markaad joogtid darajooyinka marka waxaa ugu horeeya user mode. marka user mode ama user exact baa la yiraahdaa markay soo baxay saas u egtahay koorar gaar ah ku fasaxmaya awood inta badan ma badna user mode marka la joogo kaliya maaragtay show iyo wixii la midka ah show iyo wax la mid ah samayn kartaa iyo bingi iyo waxyaabaha samayn kartaa awoodo badan ma leh. tan labaad waxaa la yiraahdaa privilege mode. marka privilege exact bay noqonaysaa waa levelka labaad kan qofku wax badan buu samayn karaa waxbuu delete garayn karaa waxbuu save garayn karaa waxbuu trace garayn karaa configurationka dhan buu fiirin karaa marka levelkan joogo. levelka saddexaad waxaa la yiraahdaa global configuration mode ama global mode.
levelkan qofku dee wax alaala wixii configuration oo dhan buu samayn karaa. moodyo kala jira oo specific ah sida interface configuration mode ah, lacala global mode-ka adoo joogay ayaa interface sii gashay. interface waxaad tiri gigo 001 baad tiri moogta waa sii gashay, kan arta inaad shaqo ka sii qabat mood kale kuu furaya. marka taana marka waa saddexda mood ayaa afar mood weeye camal, laakiin saddexa mayna kan interface mood ku maartay iyo example ma garatay si dhex galay moodka jiri kara specific configuration mode bale. marka saddexda mood saddexda darajo inta badan labada hore waxa lagu xiri karaa mid walba password u gaar ah ayaa lagu xiri karaayo security-ga siskada ayayba kasii mid tahay oo inuusan qofku hal mar iska jabsan karin. yani hadduu mid soo jabsado mid labaad ba laga rabo, mid soo jabsado mid kale laga rabo, hawl saas oo kale ayaa qofka laga doonaya. okay wahag marka waxaynu marka insha Allah haddii Ilaah yiraahdo aan ku arki doonaa casharkii ayaynu marka qaybta practical-ka ayaynu insha Allah ku arkaynaa qaybtaas haddii Ilaah yiraahdo. okay markaan haddii Ilaah yiraahdo waxaynu ku shubaynaa packet tracer-ka. packet tracer-ku waa maxay? waa software inoo ogolaanaya inaynu maxaa la yiraahdaa switchadii iyo routeradii iyo ku practice gareyno networkyo isku xirno waxaas oo dhan qabano. maxaa la yiraahdaa marka packetka marka insha Allah GNS3 baa jira mid labaad oo CCNP-da marka la diyaarinayo la isticmaalo. marka GNS3-ga muxuu kaga duwan yahay packet tracer-ka? GNS3-gu asaga faa'iidadiisa wax kale maaha, yani routerkii iOS-kii toos ah oo routerku lahaa iOS-kiisii inta toos loo soo koobiyey toos loogu shubay. marka xoogaa culayskii routerka oo kale iyo soo kicidii routerka iyo culayskii yani sida router life weeye ma fahamta adoo ku jira. marka yani xoogaa feelingkii ayuu maaragtay kaga duwan yahay, laakiin technical waa isku mid. xoogaa the options dheeri adana wuu leeyahay dee kaa CCNP-da unbay anfacaysa, laakiin hadda CCNA everything halkan aan ku qabsan karnaa. marka software-ka waa kan aynu kicinaynaa haddii Ilaah yiraahdo. yes waa hagaag marka waxaynu dooranaynaa accept next inta kale waa iska next desktop-ka noo dhig. sidaasaynu ugu shubanaynaa haddii Ilaah yiraahdo packet tracer-keeni. okay marka packet tracer-kan marka hawlihii oo dhan ayuu haddii ebeerada inoo qabanayaa. sidaasaynu ku practice gareynaynaa. awal meesha qofka lacag badan ay geli lahayd $500 $200 $300 aqala badan si iska switchiyo routero xaafadda soo buuxin lahayd wixii tirada badnaayo dhan uma baahnid, wax walba halkaan aad ku qabsanaysaa. haddii aad rabtid just inaad siska xabad aad aragtid maxaa reeda xabad cali soo macmal aad kasoo gadan kartaa oo ama router ama switcher taa un baad isaga practice gareyn kartaa oo xaafadda dhigan kartaa oo maartay uma baahnid maartay inaad aad soo qaadatid maxaa reeda qalab tira badan aad soo qaadatid. marka hadda daaridda ah iyo inta console ku xirashada inta un baa kugu cusub, waxa kale oo dhan waa taqaanaa automatically waa ku hagay iyo systemka ahaan waa ku tusay. marka insha Allah waxaynu sugaynaa maartay inta uu soo kacayo haddii Ilaah yiraahdo oo iska gabagabaad moodaa. okay waxaa soo kacaya marka waxaa jira mid labaad mid kale oo packet tracer labaad oo 7.2 ah baa jira ka hadda isticmaala mid iska free ah. ka kale xoogaa wuxuu rabaa user iyo waxyaabo noocaas oo ka rabaa marka inuu lacag weydiina waa macquul. marka laakiin waxba kanunba kugu filan wax walba kugu dhamayn kara. okay waayahay marka waxaynu soo qaadanaynaa marka waxaan shaqada ka bilaabaynaa halkan si aragtid packet tracer-ka haddaan wax yar kuu sharaxo. xaggan waxa weeye markaad save garaynaysid marka weligaa project markaad samaysatid software-ka ama device-ka waa save garaynaysaa, laakiin project-kana sidoo kale waa save garaysanaysaa. waxaa kaloo muhiim ah haddaad farta iyo inaad weynaysid iyo wixii lamid ah iyo iyadana marka meelahan aad ka bedelaysaa toolska iyo optionska iyo xaggan aad maartay kala soconaysaa haddii Ilaah yiraahdo. waa hagaag okay marka options preferences halkaasaad marka insha Allah aad farta iyo interface-yadii ayaad ka bedelaysaa. font farti waatan farti iyo maartay lambarkeedii size-keedii waxa xaggan ka bedelaysaa. okay marka waxaan soo qaadanaynaa xagga marka waxaa ku jira routeradii saaratid routeradii 18kii 1941 kuwa badan kuwa 28 ah kuwa 29 series ah. marka router badan baa ku jira. halkan waxaa ku jira switchyo 2950 2960 wixii la xaggan waxaa ku jira end deviceski raahdo xaggan end deviceski xaggan waxaa ku jira fiilooyinkii. marka hadda waxaan soo qaadanaynaa
switch baan soo qaadanaa. Switchkan 2960 ayaan soo qaadanaynaa. waxaan sidoo kale soo qaadanaynaa laba computer, mid laptop ah iyo mid kale iyo xabad server ah. marka hadhow iska sii wadan doonaayo hadba faa'iidooyin gaar ah. marka serverku waa maxay? serverku waa iska computer weyn weeye, computer culus oo CPU-diisa badan yihiin, RAM-kiisu badan yahay. inta badan marka dee wax loogu talagalay inuu application ama program dadku dhan wada gelayaan oo kale iyo hayo ayaa loogu talagalay, ama xog la dhigto ama wax lamid oo kale. Okay, marka waa isku xiranaynaa. saa aragtid switchkan waa 29 maaragtay fast ethernet way saa aragtid fast ethernet. marka waxaan samaysanaynaa sheeg waa isku xiraynaa. xaggan fiilooyinkii weeye baa yaala. fiilooyinka waa garanaysaa, laba device oo kala duwan marka la isku xirayo straight through waa la isticmaalaa. laba device oo isku mid marka la isticmaalayo cross over. marka laba device oo isku mid ah kana isticmaalnaa straight through. straight fast ethernet ka kaga xiraynaa sababtaa waa ethernet waxaan isticmaalayna. kan waxaan kaga xirnay 2, kan waxaan kaga xirnay asna fast ethernet kiisa godka labaad 3 aan kaga xirnay. kana waxaan kaga xirnay maxay fast ethernet ka, kadibna waxaan kaga xirnay godka afaraad ayaan kaga xirnay. marka hadda saa aragtid switchkii ayaa inoo daaran may rabaa. hadda fiir marka ugu horeysa gaduud buu noqonayaa, kadib wuu isbedelayaa, jaallo noqonayaa, wax yar buu isbedelayaa, haddana blue cagaar buu noqonayaa. cagaar markuu noqdo marka okay. marka hadda shaqadeena marka maxaa ka mid ah versionska sida loo fiirsho inaan fiirino oo ah horta modeska inaynu fahanno, modeska inaynu aragno, versionska inaan wax ka aragno, host name-ka inaan naqaano sida wax looga bedelo, waxyaabahaas aan arkaynaa. marka wixii kale aan ku dari karnaa waa fiirinaynaa haddii ilaha yiraahdo. marka aynu ka bilowno marka shaqada ugu horeysa switchka. markaad inaad geshid hadda packet tracer, marka haddii aad toos u haysan lahayd waxay noqon lahayd inaad console isticmaashid oo ku xirmatid, laakiin hadda waa ku dhufanaynaa CLI-giisi toos baan u tagaynaa. marka switchka waa kan zoom in saasuu u eegayaa caadiyan switchku ma garanaysaa. marka switchku waa godad badan yahay. hadda waa catalyst 2960 kan isticmaalayna, catalyst 2960. marka soo kaci waxaan leenahay enable show enable dhihi mayno marka hore enable horta ka noqo. waxaa marka ugu horeysa waxaan rabaa dhowr wax inaan ku tuso. halkaa ugu horeysa aan joogno oo greater than ah, greater than keliya bas weeye, ma fahanti. halkaa waxaa la yihahdaa user mode, waa modekii ugu horeeyey ee aanu joognay, ama user mode ayaa la yihahdaa. halkan wax badan lagama qaban karo. calaamad su-aal aan dhaho, calaamad su-aal markaan dhaho question mark markaa qorti waxa kuu soo baxaya waxa ku jira meesha oo dhan waa helbi camal. marka halkan waxaan ka qaban karnaa connect, enable, exit, log out, bingi, resume, show, telnet, waxaasoo kale aan ka qaban karnaa. wax saa u badan xagaan kama qaban karno. marka bingi waa maxay? computer baan rabaa inaan bingi garayno. bingi afar sideedaad oo kale yani computer baan rabaa inaan bingi garayno, network baan rabaa inaan bingi garayno, saasoo kale loo bingi garaya. marka taasoo kale waa saas. marka iyo enable oo ah codeka looga gudbo user mode-ka looguna gudbo privilege mode-ka, ma garanaysa. telnetna waa ka samayn karnaa sidoo kale. marka showna waa dhihi karnaa. okay, sidoo kale showna aan dhahno horta show. markaan dhahno calaamad su-aal, show waxyaaba badan baa ku jira meeshan. show cdb, show db, clock, show waxyaaba tira badan ku jira. marka waxaan dhihi karnaa show clock. clock marka hadda fiirino March 1993 waa khaldan tahay moodaa. clock waa khaldan tahay. okay, waayo waxaan sidoo kale fiirin oo waayadii adiga malaha operating system-kan laga fakeray. show version haddaan fiirino marka versionka ma aragtay horta versionka waxaa arkaysaa bahalka kor u bax, waxaa arkaysaa switchka noociisa, operating system-kiisii iyo wuxuu ku shaqeynaya. waxaa la yihahdaa C2960. hadda waa saan kuu sheegay marka hore 2960 oo 24 TT ah. 24 port buu leeyahay ka dhigan tahay wey, ma fahanti. marka ka waa nooca guud, ma garanaysaa. okay, marka operating system-kiisana dee isla noocaas ku shaqeynaya. marka operating system-kiisa waa isla sidoo kale versionka uu isticmaalayo waa 12.2 baa laga version gaarka operating system isticmaalayo. halkan waxyaabo badan baa ku jira motherboard-kiisa, noociisa, model-kiisa, waxaa ku jira maxaa la yihahdaa waxyaabo badan baa xaggana ku jira oo loo baahnaan karo haddii lagu weydiiyo. marka laakiin waxaa xigmadda ugu muhiimsan tahay inaad garan kartid nooca la isticmaalayo oo ah Cisco C2960 inuu yahay. operating system-kuna 12.2 versionkiisu uu sii yahay ayaad arki kartaa. hadda waxyaabaha maarta markaba garan kartid ah. marka waa kan hadda waa arki kartaa modelka qalabka isticmaalaysid waa kan,
versionka operating ku jira waa kan marka waana switch. Okay, switch weeye. godadkiisa marka la isku daro 24 boort iyo 2 god oo gig ethernet marka 26 boort ayay noqonayaan. marka kana waa registration configuration registrar bal yada hadhow waan si fiican fahmi doonaa. registrarkaas waa waxa keenaya sidoo hadda uu shaqeynayo laakiin adoo hadhow si fiican fahmi doontaa. marka soo soco ka marka waa maxay user mode waa la yiraahdaa halkan user mode ma garanaysaa. show marka waa taynu waxyaabo badan aragnay show version baan aragnay marka waxaynu kaloo arki karnaa waxyaabo kala duwan baan fiirin karnaa flash oo kala fiirin karnaa show flash marka waa aragtaa flashteena flashteena marka intee ka kooban tahay intee bytes ka kooban tahay total byteskeeda waxa weeye intaan waa 100 intaan waa 1000 64 milyan oo bytes wey marka 64 megabyte way ka dhigan tahay ma fahanti 64 megabyte ayay ka kooban tahay sidoo wax garatayna. okay waxaan kaloo arki karnaa free byteska inoo bannaan 359 dhanba inoo bannaan marka wax badan baa inoo bannaan marka flashtenana waa arki karnaa tana waa taa kana waa operating systemkii magaciisii oo sidoo ugu save gareysan yahay systemka C290 taasoo kale magaranaysa. marka I hope ina fahantay halka meesha aan joogno waxa la yiraahdaa user mode waa mode koobaad ugu horeeya. marka enable markaan dhahno oo code-ka loogu tago mode-ka labaada waa arkaysaa hadda uu ka duwan yahay hash ayaa fuushay tii hore creator dambe tan hash baa fuushay. halka aan joogno waa maxay privilege mode. marka privilege mode halena show dheh waxa la yiraahdaa waxyaabo badan baa privilege mode laga qaban karaa access listing in la fiirsho hostiyada interface-yada in la arko. marka adiga waxyaabo ugu weyn waxa kamid ah show run oo ah running configuration ko dhan itus wax alaala waxaan ka qabto dhan itus in halka ka arki kartid. waxa kaloo fiirin kartaa show VLAN isko kale itus de VLAN lacala jiraan hadda waa arki kartaa hal VLAN ayuu leeyahay computerkan iraahda switchkan godadka dhan VLAN kaas ay ku magaciisa gareysan yihiin. sidoo kale halkan save ayaa marka code qortid oo kale ama magaca ka bedeshay sida loo save gareeyo iyo savingkii wax dhan halkan laga sameeynaya. okay kan marka waa privilege mode. marka levelka ku xiga waxa la yiraahdaa global mode kan laakiin wax badan baa qofka qaban karaa macal switch oo tirtiri karaa. okay levelka labaad waxa la yiraahdaa global mode wixii configuration laga qabtaa config-t ayaa loogu gudbaa. config-t wax laga soo gaabshay wax kala maaha configuration tabta tabta ku dhameystirmaya tabta oo keyboardka ka terminal waa ka configuration terminal. marka saasa u galeynaa hadda halkan wax badan baa laga qaban karaa halkan wixii configuration oo dhan baa laga qaban karaa ib la sameynayo god la daminayo god la daarayo wax walba oo maartay wax laga qabto. marka hadda shaqada ugu horeysan ka qabanayna waxa kamid ah hostname inaan bedelno magaca inaan bedelno. marka hostname hadda calaamad su'aal raaciyo word raaci buu leeyahay. marka magac ma bixinaynaa waxaan bixinaynaa Boston kada Bolton switch on bixin. okay marka hadda aragtid marka hadda waxa isbedelay magacii aan u bixinay marka hadda magacaan raamku saaran yahay waa ka soo baxay exit baa uga soo baxay haddaanan save garayn maxaa raahdaa hadhow haddii ku iga dama switchku ma helayo xogtan. marka waa inaan save gareeyaa right baa loo save garayn karaa waa kow qaabka waa qaab loo save gareeyo. koodka labaad waxa lagu save gareeyo waxa copy run start waa koodka labaad. these two codes labada code ayaa maartay la isticmaalaa marka wax la save garaynayo copy run start iyo maxaa raahdaa right labada code ayaa wax lagu save gareeyaa. okay marka hadda waa save gareynay hadda ka baxo marka ugu horeysa waxaan ka bilaabayaa user mode waa aragtaa greater than user mode waa ka wareegtay waxaan tagay privilege mode waa ka sii tagay global mode baan joogaa hadda global mode waxa lagu gartaa config hash ayaa lagu gartaa. okay hadda waxaan marka ku guuleysanay inaan marka magaca ka bedelno ayaa ku guuleysanay. marka hadda waa aragtaa switch halkan qoraal ahaanna waa bedeli karnaa waxaan bixin karnaa maybe boosaaso switch aan bixin karnaa inta badan inkastoo ay fiican tahay inaad isku magac u bixisid. marka gudaha hal mar aan galno command line interface-keena aan tagno marka waa aragtaa exit hadda switch-keena marka waa soo galnay user mode-kan soo joognaa. marka hadda aragtid switch-keena waa la iska soo gali karaa user mode-ka waa la gali karaa enable mode-ka haddaan tagno privilege mode-ka waa la tagi karaa qofku wuxuu tagi karaa global mode-ka wuu tagi karaa
marka waxba male marka waxaan sameynaynaa xoogaa password baan ku xiraynaa passwordka koowaad aan ku xirayno waa kan console-ka marka ugu horeyso la soo geliyo kan intaan user mode la soo gelin passwordkiisa ugu horeeya marka passwordka ugu horeeya waxaan leenahay line console bay ka dhigan tahay line console 0 console-ka marka password baan u bixinaynaa passwordkana waxaan u bixinaynaa okay waxaan u bixinaynaa okay London baan u bixsanaa London 1 ama kan London baan ka dhiganaa okay kadibna waxaa raacinaysaa ereyga login ayaa raacinaysaa marka waa maxay line console kadibna passwordkii kadibna passwordku wuxuu ku noqon lahaa ereyga harka ka dhigo halka marka iyo lambaraha direct kadibna login baa raacinaysaa marka hadda u fiirso maxaa isbedelay markaynu ka wada baxno marka ugu horeysa soo gelinna ma aragtaa wuxuu inaga rabaa password awal password inagama rabin marka hadda waxaan gelinayaa London fiirso waa qoray laakiin ma arki kartid oo waa loogu talagalay for security reasons inaadan qofka haddii qofku ag taagan yahay iyo uusan ku fahmin ayaa loogu talagalay marka inter baan leena hadda waa artaa marka user mode-kii password ayaa ka horeeyay marka passwordkaas hadda console-kii uu ahaa kii ugu horeeyay oo lacala haddaa fiilo gashid kusoo gashid wuu ku weydiin lahaa marka hadda global mode privilege mode-kii waa joognaa haddana global ku noqonayna password kale oo xirana waxa weeye kii lagu soo geli lahaa privilege mode-ka si loo soo galo waxaan weydiinaynaa password labaad marka waxaan leenahay enable password baa jirta laakiin tan waa la nacay tan xoogaa passwordka waa la arkayaa marka hadda waan ku tusayaa isla ama hadda ma ku tusayaa London 1 baan u bixinay kan marka exit baan leenahay hadda exit hadda mar labaad hadda marka ugu horeysa wuxuu naga rabaa password London baan gelinay kan waa user mode-kii enable baan dhahnay haddana fiirso privilege mode-kiina waxaan laga rabaa password marka London haddaan 2 qoro wuu igu soo celinaya waa khalad London 1 marka hadda waa aragtaa privilege mode-kiina password baa ku xiran laba password baan ku xirnay user mode marka la soo galaayo privilege mode marka la soo galaayo privilege mode kan xiray waa kii aan u bixiyay enable passwordka ka enable passwordka ciladu leeyahay waa maxay hadda exit privilege marka igu soo celi show run marka hadda dhahno oo aan socono waxa arkaysaa passwordkii aynu la baxnay ama kor u bax hal mar aan kor u baxo waxaanu arkaynaa passwordkii aynu la baxnay waka enable password London 1 ayaad arkaysaa passwordkii plain text buu u save garaysmayaa maxaa reedaa qofku arki karaa ba xaggan u kaari karaa marka ma fiicna marka sidaas taas u dhicin waxaan sameynaynaa ii sheeg waxaan leenahay sidan kan uu fudud yahay marka mid ka adag baa jira enable passwordka oo la midka ah waa isla shaqo isku mid weeye enable passwordka iyo enable secret waa isku mid laakiin secretka waa ka faa'iido badan yahay marka isla London 1 baan ula baxaynaa ama 2 haddaa 2 ula baxno kan ba awoodda yeelanaya kii hore enable password hadduu hore kugu samaysnaa kana khadka qaadanay marka isla wankeena baan dhahaynaa the enable password you have chosen is the same as your password this is not recommended to enter marka wuxuu leeyahay lama recommended grade marka adoo hadda 2 nooga dhigo okay waayahay exit baan leenahay hadda marka exit dhahno oo aan ku soo galno London kan ugu horeeya enable-kii aynu enable-kii soo galno haddaan hadda London 1 dhaho ma shaqeynayo marka waa inaan London 2 dhaha kii enable secret ku qaadanaya sidoo kale hadda haddaan show run dhaho okay kor hal mar u bax show run dhaho waxaa arkaysaa kii dambe aan sameeyey lama arki karo marka uu ka secure-san yahay enable secret-kii halka enable password-ka la iska arkayo okay marka hadda laba shay baan secure gareynay shayga ah user-ka lagu soo galayo maxaa riyada marka ugu horeysa la soo galayo console-ka password baa u sameynaa marka labaadna oo privilege marka la soo aadayna password baan u sameynaa switch-kii magaci waa ka bedelnay intaas ayaan so far aan qabanay marka waxaan ku daraynaa telnet-kii baan hal mar sii sameynaynaa oo ah inuu qofku telnet ahaan kusoo geli karo marka telnet-kii marka see u dhacayaa telnet marka xaggaan aan tegaynaa telnet-ka waxaa laakiin inooga horeeya inaan VLAN-ka IP siino marka show VLAN show IP interface brief baa la dhahaa marka la rabo godadka inaad fiirisid switch-ka show IP interface brief baa la yidhahdaa koodhkan marka hadda inter baan leenahay haddaa aragtid godadkii waa kuwan godadkii kala duwanaa marka inta badan IPsaas ma laha VLAN-kiina waa aragtaa VLAN 1 waa manually down wax IP ana ma leh marka VLAN-kaas switch-ka si loo maamulo VLAN-ka waa kii laga maamuli lahaa ma garatay marka switch-ka si loo maamulo waa inaan VLAN-ka IP siinaa marka waxaan tegaynaa global mode kombiyuutarada switch-ka waxaan siisanaynaa IP ah 192.1.2 baan siisanaynaa okay kombiyuutaradana waxaan siin doonaa 192.168
marka waxaa dhan muhiim ah inaan qoro 3 un baan siisanaynaa kan waxaan siinaynaa 4 kan waxaan siinaynaa 5 okay marka kan marka aan siino marka 2 gisaan siinaynaa marka waxaan leenahay interface VLAN 1 IP address 192.168 1.1 oh sorry 2 buu ahaa 2.255 subnetkii 0 noshad baan leenahay marka hadda daa fiirisid VLAN-ka wuxuu noqonayaa abuu noqonayaa show IP interface brief haddaan dhaho marka sidoo kale waxbaan boobsinaya laakiin boobsinka muhiim ma adiga boos baa siisanaysaa oo ku cashanaysaa inay tahay marka taas ala soco hadda VLAN-ki waa up sidoo kale fiir hadda computerkan ayaa IP gelinaynaa 5 baan gelinaynaa marka la soco subnetkeena waa maxay 255.255.255.0 hadda default gateway looma baahna sababta waa hal switch network markuu hal switch ku xiran yahay computerradan default gateway uma baahna sababta network iyo kale ma aadayaan okay marka waxaan sameynaynaa computerkana soo furaynaa IP-ga 5 baan siinaynaa desktop baan tagaynaa IP address baan siinaynaa IP baan siinaynaa 192.168 sorry 4 bukan lahaa okay marka subnetkina waa siinay default gateway looma baahna okay marka hadda haddaan fiirino computerkan routerkan switchka ma biin garayn karaa 192.168 isaga ahaa horto 4kiisa waa biin garayn karaa oo 4ku waa isla asaga okay ma biin garayn karaa switchkii oo ahaa 2 marka switchka weli waxaa muddo xawaanaysan hal mar biin garayn laakiin qorshuhu waa inuu biin gareeyo okay waayo wuu biin gareeyay marka hadda waa aragtaa wuu biin gareeyay marka ugu horeysa RB baa la yiraahdaa RB uu sameeynaya request time out-ka ugu horeeyo xogaa barash uu sameeynaya marka waa la biin garayn karaa hadda laakiin sida VLAN-ku maxaa riyaa telnetka maxay uga baahannahay telnetku wax kale ma aha waxaanu rabnaa annagoo computerka joognaa ilaa switchkiis wax walba inta fiiladii iyo console-ka soo qaadatay switchka ma dul tagaysid oo maxaa riyaa sidaas configuration ugama sameynaysid marka dee wixii caqli baa la rabaa inaad ku darto waxaa loo baahan yahay inaad maxaa la yiraahdaa adoo computerkaada iska fadhiya switchka geli kartid ayaa la doonayaa marka xagganaynu tagaynaa waxaan sameynaynaa telnetkii baan configure garaynaynaa global mode baan tagaynaa line VTY baan dooranaynaa 0 to 4 marka virtual line weeye virtual ahaan lagu soo geli karo 0 to 4 waa maxay ilaa 5 connection baa soo geli kara laakiin waa laga badin karaa ilaa 15 baa hadda la gaarsiin karaa laakiin 4 waa maxay 4 qof baa hal mar switchka soo wada geli kara haddaad rabto inaad bastid waa badin kartaa marka kadibna password baan siinaynaa oo waxaan u bixinaynaa London 3 baan isaga baxsanaynaa kadibna waxaan leenahay login ayaan leenahay ma garat marka ogow mar walba waxaa muhiim ah inaad save garaysid copy run start aad dhahdi qaabkan waa loo save garayn karaa right na waa dhihi karaa mar walba waa inaad galo intaa privilege marku soo noqotid aad save garaysid okay marka hadda aynu fiirino wuu biin garayn karaa okay weeye waa biin garayn karaa yaa tuuga waa biin garayn karaa marka waxaan isku dayaynaa annagoo computerkeenaan joognaa computerkeenaan joognaa inaanu geli karno switchka ayaan isku dayaynaa marka waxaan leenahay telnet 192.168 saarti password buu na weydiiyey marka passwordkooda wuxuu ahaa London bas buu ahaa okay so mise London 1 buu ahaa kaadi sorry London baa muusan ahayn ma London mise Bolton buu ahaa London so passwordkeeni muxuu ahaa aan hadda usoo bixin London 3 sorry London 3 waan usoo bixin marka ku noqo waa qalday London 3 waa aragtaa marka switchkeeni Bolton switchkeeni ku jirnaa enable baan leenahay London 2 ka hadda switchki waxa rabaan ka qaban karaa ka hadda daarta switchki waan fiirin karaa show IP interface brief switchki waxa aragtaan xitaa VLAN-adii wixii aan ka sameynay iyo wixii la midka ah aragtaa marka sidaas waxaynu ku qabanay shaqadeena marka casharkan intaas ku joojinaynaa haddii Ilaahay yiraahdo casharada dambe waxaynu markaa more deeply sii sharixi doonaa VLAN-ku wuxuu yahay iyo sidoo uu shaqeeyo iyo waxyaabo badan oo asaasi ah ayaynu sii taaban doonaa halaas ku joojinaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh